السلام عليكم دawadaasha qiimaha badan ee ku xiran Garyaqaan Channel meel kasta dukaad ka joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub adaba muuqaalkeena maanta waxaan waadleynaa qiso ka dhacday magaalada Muqdisho adaba channelka waxa ku soo gudbi doona qisooyin aad u qurux badan waxaan ka rabaa inaad channelka subscribe ku sameysaan comment ka soo bixisaan sheekaysan saxaabtiin la wadaagtaan waayo arintaas aad iyo aad aynu dhergelinaysaa waayahay adaba qisadeena waxay ku saabsan tahay qiso ka dhacday iskuulka Alnahda xaafadda Xamar Jadiid ee magaalada Muqdisho adaba iskuulkan qisadiisa waxay ahayd qiso aan caadi ahayn waxaan lagu magac daray qisadii sixirka adaba qisadan waxay dhex martay wiil la dhaho Cabdirasaaq iyo gabar la dhaho Najma labadoodu waxay ahaayeen arday dhigato iskuulka Alnahda adaba Cabdirasaaq wuxuu caan ka ahay iskuulka Alnahda ayuu caan ka ahay Cabdirasaaq wuxuu ahay wiil shawista ah gabar walba iskuulka ku soo biirtay wuxuu jeclaa jiray in uu barto oo la sheekaysto adaba gabadha Najma iskuulka markay ku soo biirtay maalintii ugu horeysay oo Cabdirasaaq arko uu ka helay gabadhii saaxiibadiis ay waxa uu sheegay in gabadha uu ka helay laakiin uu san awood u lahayn inuu gabadha la hadlo adaba saaxiibadiis waxay ku dhiirigeliyeen in uu gabadhan la hadlo waayo asigu waa shabeelnaagoodka iskuulka suurtagal lama aha inuu gabar sidaas uga baqo waxay ku dhaheen waxa laga rabaa gabadha in la hadasho asaadkiisid Cabdirasaaq wuxuu bilaaway sidoo gabadhaas kula hadli lahaa jaaniskaas ayuu raadi jiray maalin ka dambaysa gabadhaas ayuu raadi jiray maalmaha kamid ah xilligii break time-ka Najma oo la fadhiisay gabdhaha saaxiibadeed ayuu Cabdirasaaq u imaaday wuu salaamay kadibna uu la kaftamay wuxuuna si toos ah ula hadlay Najma oo muddo dheer ka baqay wuxuuna ku dhahay abbaay aniga waa ka helay maalmahan dhamna inaan kula hadlaan rabay laakiin awood waan u yeelay inaan kula hadlo maanta ay suurta gashay hadaba waxaan rabaa inaan isbarano oo xiriir yeelano maadaama aan ahay arday iskuulka isla dhigato Najma si jeejees leh inta u fiirisay waxa ku tiri horta adiga marka koowaad inaad isfiirisa laga rabaa inta aad isku dayin in aniga baratid waxay ku dhahday aniga inaa i barato wax fudud maahan sidoo kale waxay ku dhahday adiga isku level manihin mana i bari kartid ee inta ka bax gabdhii ayaa ku qoslay Cabdirasaaq wuu isku yaraaday kadibna meesha ayuu iskaga tagay saaxiibadiis ayuu u tagay wuxuuna u sheegay wuxuu kala soo kulmay Najma in ay si qaldan ula hadashay saaxiibadiis waxay ku dhaheen nin wixii aan kala baqayn ayaa kugu dhacay oo ah in lagu daadiyo balse waxay ku dhaheen nin rag ayaa taakani jabin gabadhan daba carar oo daba soco ilaa aad gacanta uga dhigtid saas daraadeed waxay kula taliyeen in gabadhan uu daba socdo ilaa gabadhan uu gacanta uga dhigo Cabdirasaaq mar walba isku day jiray in uu gabadha Najma la hadlo laakiin ayada u jaakiri jirtay sababta waxa weeyaan Najma wiilkan weeysi jirtay sidoo kale meesan ka helin Najmana waxay ahayd gabadha ugu shidan iskuulka oo kala kacsan oo nin walba arko oo ka helayo sababta waxay leeyahay soo jiidasho aan caadi ahayn hadaba sheekada markay halka marayso Cabdirasaaqna wareersan yahay qoftan Najma oo rabay inuu barto ka helayna ee ku taadisay ayaa sheekada halkan waxa ka soo galayo Cabdirasaaq saaxiibkiis wuxuuna kula tiriyay maadaama Najma asiga ay ku taadisay ku adkeynayso inay isbartaan in uu hayo hal arinkan ka wanaagsan hadaba subaxyada kamid ah ayaa waxa soo imaaday Cabdirasaaq iyo saaxiibkiis wayna fadhiisteen waxayna ka hadleen arinta Najma ku saabsan Cabdirasaaq saaxiibkiis wuxuu u soo jeediyay Cabdirasaaq arin aad u wanaagsan oo Najma ku saabsan sidoo ku heli lahay haddii arinkaas sameeyane inuu Najma gacanta ku dhigi doono gabi ahaanbo Cabdirasaaq aad buu u farxay wuxuuna weydiiyay saaxiibkiis waxa uu sameeyay lahay sidoo Najma gacanta ugu dhigo waxaan u sheegay inay degmada Afgooy aadaan halka meeshaas ayuu ku jiraa Cabdirasaaq iyo saaxiibkiis waxay bilaabeen isku diyaariyaan safarkii degmada Afgooy way baxeen degmada Afgooy ay tageen waxay si toos u aadeen dhanka wabiga hadaba maxay ka dooneen dhanka wabiga waxa jooga saaxir walba wabiga fadhiyane wuxuu diyaar u yahay shaqadii loo diray inuu qabto mid walbana shaqo gooni ayuu qabtaa mid jaceelku ka shaqeeyaa mid naceebku ka shaqeeyaa mid wuxuu ka shaqeeyaa dadka inuu isku diro mid wuxuu ka shaqeeyaa qof si loo dhici lahay aad ay u fara badan tahay shaqooyinka ay meesha ku hayaan saaxirinta hadaba waxay u tageen nin saaxir ah oo qaabilsan qaybta jaceelka markay u tageen Cabdirasaaq saaxiibkiis wuxuu ku dhahay saaxirkii ninkan saaxiibkayga ah waa arday dhigto iskuulka Alnahda ee xaafadda Xamar Jadiid gabar Najma la dhaho ayaa iskuulkaas dhigato gabadhan uu ka helay wuxuu isku day gabadhaas inuu gacanta ku dhigo laakiin way ku adkaysay hadaba waxa laga rabaa arinkaas inaad u fududeyso wiilkan saaxirka wuxuu dhahay shaqadaas waa shaqadayda waliba shaqadan shaqo ka weyn ayaan qabtaa waxa idin ka rabaa in aniga waxa idin amra kaliya aad sameeysan
waxay ku dhaheen maxaa naga rabtaa inaan sameyn wuxuu ku dhahay saaxirkii waad bixaysan waxaad tagaysaan dukaamada bagaashka lagu gado kadibna waxay soo gadaysaan 3 xabo ninaca kalaradoodana ay kala duwan yihiin cabdirasaaq iyo saaxiibkiis waa baxeen dukaan bagaash ayay tageen waxayna soo gadeen 3 ninac oo kalarooda kala duwan yihiin haddaba 3 ninac kalarooda waxay kala ahaayeen jaallo guduud iyo buluug 3 ninac mid kamid ah ayuu sixir ku akhriyay wuxuuna ahay ninaca jaalaha waliba ninacaas wuxuu ahaa ninac qori ninac jaalaha ayuu sixir ku akhriyay saaxirkan wuxuu ku dhahay waxaad ku laabanaysaan magaalada Muqdisho iskuulka ayaa tagaysaan waxaana geenaysaan 3 ninac ayadoo gabdha saaxiibadeeda la fadhiisa ayaad u geenaysaan ninac marka u taagtaan gabdhaha la joogo labada ninac ay qaado doonaan ninaca saddexaad oo jaalaha oo loogu talagalay gabadha in lagu sixiro ayada ayaa qaado doonto ninacaas ayaa sixran ninacaas markay qaadato ayay kaada qodadhabi doontaa qisadan baytatu ayaan ka hadli doonaa daba qisadii ka dhacday iskuulka alnahda qaybteedii labaad ayaan halkan ka galeynaa daba qisada waxay noo mareysay cabdirasaaq iyo saaxiibkiis oo degmada afgooya ka soo qaatay 3 ninac mid kamida ninacyadaas oo saaxirkii soo sixiray waxaa loogu talagalay 3 ninac mid kamid ah in gabadha najma la siiyo ninacaasna qorshihiisu wuxuu ahay gabadha najma markay ninacaas cunto kadib inay ku waalato wiilka cabdirasaaq waayo markii hore way u jeekiraysay waxaana la rabaa ninaca markay cunto kadib inay wiilkan jeclaato ee ka daba dhadhabto weliba waayahay cabdirasaaq iyo saaxiibkiis degmada afgooya way ka soo laabteen waxayna soo aadeen dhanka magaalada Muqdisho ayagoo aad u faraxsan qorshahoodina u suurtagalay maadaama ay soo heleen nin saaxira hawsha ay rabeen u qabtay magaalada Muqdisho markay ku soo laabteen kadib waxayna ka tashteen waqtigii ay gabadhaas u gudbi lahaayeen ninac la soo sixiray waxayna isku afgarteen in xilliga ugu wanaagsan oo mishinkaas la fuli karo inuu yahay xilliga break time-ka ardada ay break u soo baxaan xilligaas ayaa ugu wanaagsan ayay u arkeen waayahay say jaanis u gaadayeen maalin maalmaha kamid ah najma oo gabdha saaxiibadeeda geed hoostiisa la fadhiso ayay u keeneen 3 ninac gabdhihii kale 2 ninac ayay qaateen ninac jaalahana waxaa qaadatay qoftii la rabay oo najma ahayd kadibna afka ayay gashatay maalinkaas maalinkan ku xigay subaxii alisayda ayay najma imaaday iskuulka ayadoo raadinayso cabdirasaaq ardayda ayay weydiisay fasalada dham ayay ku wareegtay ardayda way yaaban yihiin waayo gabadhan waxay aad gabar aad ugu jaakirayso cabdirasaaq laakiin maanta ayadaa raadinayso markii dambe maalinkaas cabdirasaaq wuu soo daahay xilli dambe ayuu imaaday iskuulka kadib markuu imaaday way aragtay wayna ku soo booday hab ayay siiday waxayna ku dhahday cabdirasaaq maxaa kugu dhacay saako dhamaa ku raadinayay intee ka baxday cabdirasaaq wuxuu dhahay saako waa soo daahay hadda ayaa iskuulka imaaday cabdirasaaq aad ayuu u farxay waayo wuxuu ogaaday qorshihiisii oo sixirka u soo diyaariyay oo degmada afgooy u aaday inuu u suurtagalay naagtina sixirka u qabtay maadaama najma markii hore u jaakiraysa cabdirasaaq haddana ay jeclaatay daba cararayso cabdirasaaq wuxuu halkaas ka arkay jaanis aad u wanaagsan kadibna wuxuu bilaabay gabadhii inuu la sheekaysto kolkooliyo magaalada ku soo wareejiyo waxay bilaabeen sidoo kale inay waqti wada qaataan ardadii iskuulka ayaa ogaadeen labadooda inuu xiriir weyn ka dhaxeeyo luuq walba oo iskuulka ka mid ah ama xaafadda ka mid ah waxaa looga sheekeynayay arrinkooda keliya haddaba maalin maalmaha ka mid ah cabdirasaaq najma wuxuu ku dhahay waxaan rabaa inaan dalxiis ku wado marka isdiyaari najma wuxuu ku tiri diyaar ayaa xilligaa rabto ay kaxay kartaa ee waqtiga aad kaxaynaysid ii sheeg cabdirasaaq uu u sheegay wuxuuna dhahay waxaan bixinaa galabnimo waxaana rabaa inaan aadno degmada afgooye gaar ahaan beeraha ayaan ku soo dalxiisaynaa najma way ka aqbashay waxayna soo xiratay dar aad u qurux badan kadibna waxay soo wacday cabdirasaaq waxayna ku dhahday diyaar ayaan ahay hadda waana wadi kartaa cabdirasaaq iyo najma way kulmeen kadibna waxay soo raaceen degmada afgooye waxaa jira degmada afgooye beero asendayaala oo loogu talagalay in lagu dalxiiso beerihii ayay galeen waxay bilaabeen sawirro iska qaadaan ee ku dalxiisaan meesha beeraha gudaha markay u galeen waxay bilaabeen inay aad u sheekaystaan laakiin beerta dhexdeeda maxaa ka dhacay arrin aan caadi ahayn oo marnaba la filanin ayaa beerta gudaheeda ka dhacday in cabdirasaaq iyo najma ay aad iskugu soo dhowaadeen kadibna ay sameeyeen galmo sharci darra waa waree markii la gaaray habeennimo najma iyo cabdirasaaq degmada afgooy iskaga soo laabteen magaalada Muqdisho ayay ku soo laabteen najma waxay aaday gurigeeda cabdirasaaqna gurigiisa ayuu aaday iskuulka waqtigiisa markii la gaarana iskuulka ay iskugu imaadeen sidaas ayay waqti ugu wada qaadan jireen iskuulka dhexdiisa cabdirasaaq iyo najma waxay noqdeen far iyo faraanti iskuulka dhamna waa laga ogaa arrintooda najma marka wuxuu ahaa sixir oo ninka meesha jecleen waxa u soo jeedaya cabdirasaaq wuxuu ahaa sixir kaliya najma markii ogaatay inay uur leedahay aad bay u naxday ayadoo walwalsan waxayna u imaaday cabdirasaaq waxayna tiri maalinkii aan wada baashaalaynay uur ayaa aniga qaaday cabdirasaaq wuxuu ku dhahay uurka waa adiga kuu keligaa saaxiibii annaga dalxiisan halkaas u aadnay adna iska kaaceli waayey qaladaa naga dhacay ee cunugaa iska soo rid
najmo aad ayay u walwashay weligeedna maysan samayn ficil noocaan oo kala waxayna ka baqday ciddeeda inay arrinkan ka ogaadaan saaxiibteed qaaliga ah ayay arrinkan la wadaagtay waxaana u sheegtay wiil cabdirasaaq liira oo iskuulka la dhigto in uu xiriir ka dhexeeyey maalin ay dalxiis isu raaceen dalxiiska ayagoo joogaan ayay waxay sameeyeen galmo sharci dara ah galmadaas ayay ur ku qaaday wiilkiina uurka uu ku inkar wuxuu leeyahay iska sorid maxaan sameeyaa ayay saaxiibteed ku tiri saaxiibteed waxay kula talisay in ay raadiso ninkaas sida ku hanaleed ku guursaleed waayo cunugan wuxuu noqon doonaa wecel ayadana way ceeboobi doontaa reerkeedana ceeb xumo ayay u soo jiidi doontaa bil walba bisha ka dambayso najmo uurkeeda uu sii weynaanayay ilaa ay ka ogaadeen reerkeeda waxayna ku dhaheen uurkan yaa leh waxaana u sheegtay wiil cabdirasaaq la yiraahdo oo iskuulka isla dhigtaan inuu uurkan leeyahay waxayna sheegtay in uurkan uu ku imaaday galmo sharci dara ah oo labadooda dhex martay reerka afka ayay gacanta saarteen waxayna raadiyeen cabdirasaaq reerkoodii wayna u tageen waxayna ku dhaheen wiilkiina iyo gabadheena waxaa dhex maray galmo sharci dara waxaa rabnaa markaa xiriirkaas qaldan dhacay inaan sharciyeyno oo labadooda isu guurino cabdirasaaq wuu diiday gabadha inuu guursado maadaama markii horeba qorshihiisa u ahay baashaal cabdirasaaq reerkiisa ayaa la hadleen waxayna ku dhaheen gabadha adiga ayaa uruysay adaana lagaa raba inaad guursatid haddaad diididna tallaabo sharci leh ayaan kaa qaadaynaa cabdirasaaqna gabadha sidaas ayuu ku guursaday laakiin bilooyin kadib guurkooda reerka najmo waxay ogaadeen in gabadha najmo la sixray cabdirasaaqna uu sixray